bashiir wuxuu ahaa walaal, wuxuu ahaa aabe, wuxuu ahaa askari difaacaya dalkiisa iyo dadkiisa u helan siduu habeen iyo maalinba ugu soo jeedi lahaa. macsi iyo xumaan iyo sinama uusan doonan ee gabar uu gaclooday uu islahaa markaa tan waa tii aad ku ambabixi lahayd oo ku degi lahayd ayuu guursaday. gabadhu ruuxeedu waxay ahayd gabar caruur hore usoo dhashay oo xumaan iyo macsi toonaan u bareereen oo xalaasha dariiqeedii maraysa. deegaan ahaan waxay ka timi halkaa iyo burco, waxayna ku kulmeen oo dareen isugu qaadeen iskuna guursadeen garow. muddabayadaan kasoo wareegina walaal bashiir waxaa lagu sheegay inuu qabo xanuunka HIV/AIDS-ka, iyaduna ay ahayd tii uu ka qaaday. mid ogsoon ma ahayn. muddaba haddii ay kasoo wareegtana walaal wuxuu la kulmay xaalado xunxun faquuqna ugu horeeya. bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. dhammaan soomaaliweyn meel baa dunida ka joogtaan, allaha weyn waxaanu ka rajeynayaa caafimaad iyo cibaado sugan iyo camal khayr mid kastoo muraad leh. ilahay waxaanu weydiinaya inuu muraadkiisa mid khayr uga dhigo kuwa xanuunsanna oo caafimaad taama siiyo, kan geeriyooday jannadii udgoneed hoyga yeelo, kuwa laga geeriyoodana samir iimaanu ka siiyo, kuwa dhasha haysta raxmaan dhasha u barakeeyo, kuwa dhal sugaya in dhal badan u barakeysana siiyo, lamaraan dalkeena iyo nabada iyo bulshada soomaaliyeed oo midan allaha weyn waagunsanayo. abba soomaaliyeed oo runtii xaaladiisu qalbigayga taabatay. qof kasta oo damiir iyo dadnimo iyo diin lehna ay taabanayso ayaa barnaamijkiisa maanta idiin wadaa. hase ahaatee wixii faallaa intaanan guda gelin bal walaal bashiir waa ka faalloonaya naftiisa iyo xaaladda xanuun ee markaa haysa anu yar daawano. bismillahi raxmaani raxiim. waa idin salaam dhammaantiin ummadda soomaaliyed meel kastoo joogtaan. waxaan joogaa qolkayga yaraa ee ku yaalay maxaan ku rahdaa meesha aan ka deganaa magaalada aan la yiraahdo dalka Uganda ee gaar ahaan caasimadda Kampala ayaan joogaa. qolkaana deganaa yarka ah. maanta waxaan idin waday horta waxaan ogaaday inaan dad fiican ka dhalan. aad iyo aad waxaan ogaaday inaan dad xun oo Soomaaliyeed oo aan ku faani jiray inay maanta wax ay qiimaha ay leeyihiin baan soo ogaaday. maxaa yeelay awal nin buul ku jiraan ahayo magaalada iska joogay, weliba oday ka ahayo cid hadda martay dhibaato ay geysan ma jirto, cidna hadda martay uma ahayn. laakiin qofka waxaa weeye markaa socotid baa ogaatay. anigu hadda xaaladdeeda waxay maraysaa ilaah maxaa isu sheegtay ayaanti waxaad u qarsan weyda wixii doonaba ha dhacdee. aniguna waxay iga ahayd inaan ummadda Soomaaliyeed wacyigelin u sameeyo, aan maaragtay gaarsiiyo. maadaama aniga la qalday la dhibaateeyey oo dhib la geystay, inkastoo anigu qofka dhibka iga geystay aan cafiyey, laakiin tusaale waxaan uga dhigayaa xanuunka ay hayo maanta ayaa keenaya inaan maaragtay taa aan ka hadlo. xanuunkaa wuxuu yahay iskool baan dabcan aan galo. shalay waan ka hadlay iskoolkii. waxaa la yidhi ninkii noocaas matidaa carruurta naga kala cararayse gurigaagaan kugu dhigaynaa. sidaas afkooda iga dhexe. war aniga guri ma rabee carruurta fuulina maye halkaan aan ku dhiganayaa waxa samaysaa nimayo quraa aan meesha iskool ka dhigto. waxaan rabaa luqadeena siyaasada. waxaa laigu jawaabay maya, taas annaga kuu samaynayna, lacag dheeri kaa qaadi mayno. adigu waxaa wey qancin badan oo xaggooda ka yimid, laakiin anagu iskoolka iyo inuu xira ma rabo. lacagteeda iyo ceryaan sidii markii de awalna marka hore markaan lacagta bixi kadib bay ogaadeen arrintan. marka lacagteeda baan kasoo qaatay, waan soo tegay. arrintii baan shalay ka hadlayay. nin dhalinyara oo aniga aan walaalanahay ayaa markaa wuxuu yidhi niyow arrin kalaa jirta oo gabadha cuntada ay kugula dhici weyday. ha saacadadeeda dhibka uu ka muuqdaa, meeshu ka muuqdaa. meherad baan fuulay. meheradaasi waxa weeye gabadhaasi cunay macnaha nagu qori jirtay. maxaa yeelay Soomaalida waa taqaanaa qof jeeb wax ku wadan kara ma jiro. awood ma ku bari inaan jeeb maanta lacag ku qaato aan ku haystana ma lihi. waxaa dhacday gabadhii in dad badan ay weelashu gacanta kusoo qaataan oo yiraahdaan maartay walaal noogu kan macnaha gabadh wax badan bay dareentay iyo dad badan ka tagay oo meesheeda baneeyay. haddii adigu dadka ay sii baartan waxaa leeyahay ninkaas kuraasta uu ku fariistay iyo meesha wax ku cunaya annagu imaan mayno. waxaa dhacday dhowr maalmood ninka kan ilaahay horta caafimaad ha siiyo. waanu ismaqalay waa nin geesiyo ilaahay dhiiranaan iyo karti iyo iimaan buuxa uu siiyo wey. bulshada Soomaaliyeed khaasatan kuwa reer Puntland waxaa leeyahay ninkanu noloshiisa waa mid oo ciidan buu ah oo amniga iyo nolosha iyo nabadda maanta aad haysataan mid u heelan oo magaranaysaay ilaaliyo ah. waa tan kale xaaladahan xanuun ay ku timi naftiisu oo dadka ka waaninayo ka wacyigelinayo kumanaan qabo qarsaday baa jira. mid qarsaday ma aha dadkii iyo bulshadii buu ka waaninayo, isaguna wuxuu aaminay inay tahay qadar Ilaahay uu keenay.
haddana wuxuu mudan yahay in caruurtiisii la faquuqo oo la yidhaahdo aabihiina cudurka HIV qaba ma wuxuu mudan yahay in maqaaxiyihii iyo meeshii uu fadhiyey in magaranaysaa farta lagu fiiqo oo la yidhahdo xanuunkaasuu qabaa iyaan loo dhowaan xanuunkan ilaahay baa keenay qofka kanna waxa kanaad ka faafinayso ma aho dee waxaad afrikaanna joogtaanba way wada qabaan sida tan dhayalka ah ee qofka haddii aad salaanto iyo haddii aad dhinaciisa joogto iyo haddii aad xolo cunto in lagu kala qaadaa laguma kala qaado haddii lagu kala qaadayana dee ciidama ma joogteen dunidu dadku wada qaadi lahaa ninkan xataa waxa dhacday ilmihiisii iskuulka korkee tagan in la yidhi aabihiin magaranaysaa xanuunkaasuu qabaa bal iska daaye aan magaranaysaa caruurtiisii iskuulkoodii iyo foonkoodii iyo waxyaabihii nolosha ay u baahnaayeen aan dowladdu ka caawin oo aysan siin marka madaxweyne dani aan fariinta tan midoo ku u diraya waxaan leeyahay madaxweyne ninka askariga ah haddii uusan daryeel helin oo mudnaan la siin maalintii xaalad noocaas oo kale ay ku timaado goorma daryeel la siinaya ma badqabkooda iyo intay caafimaadka qabaan ba laga faa'iideysanaya nina kan wuu awooday mid iimaan laawa ilaahay baan ka dhigano nin iimaan la ka dhigay tacadiga iyo xanuunka intuu qarsado bulshada inuu ku faafiyo oo maalin walba gabar soo qabsada wuu awooday hase ahaatee aakhiradiisana isagoo u buqaaya bulshadiisana u turaya ayaa wuxuu u bareeray inuu bulshada ka waaniyo ka wacyigeliyo role model iyo in lagu daydo iyo in nin la baraarujiyo mudan buu ahaaye nin caruurtiisii la takooro ma garanaysaa isagii la takooro mudnaan maaha marka daniga waxaan ku leeyahay madaxweyne ninkaa wuxuu mudan yahay si oo ku ogow halkaa askariga reer Puntland ee maanta jooga ee halkaa jooga ee dal iyo dadba difaacaya haddii uu ka arko adaan dareen iyo daryeel siinayn dee berri toolana dariiqa inaad baranayso haddii xaaladtaas ama xaalad kale ku timaado aan waxba u tarayn buu ogaanaya marka madaxweyne naxariis baan kugu tuumayaa iyo nin ciidamada dhisidooda iyo dhaqaaleyntooda jecel laatay ninka askariga ah wixii mudnaan uu leeyahay si caruurtiisa ogow biil u qor isagana halkaa mid ku og oo dhaqaalo siiya ilaahay ka dhig waxaan leeyahay askariga xanuunsan ee halkaa jooga mudnaan buley boqolaal qof noloshooda badbaadiyey isagoo qori wata boqolaal qof oo caafimaadkooda badbaadiyey ficilkaa u bareeray cay iyo naxoosnimo iyo midabta koor iyo erinama mudnee in la dhaqaaleeyo oo wuxuu markaa u baahan yahay hadday daawo caafimaad noqoto iyo magaranaysa hadday duco noqotoba mid idinka mudan weeye marka waxaan leeyahay kuwa kan reer Uganda jooga ee gudoomiyaha magaranaysa jaaliyadda Puntland ee warkiisu ay tahay maalinta fariin magaranaysa nin xildhibaan ama wasiir imaadana wariya xildhibaan iyo wasiirka imaanaya aad maalinta wax ka suugeysay iyo jaaliyadda aad magac ahaan ugu wantay waxa ka mudan ninka askariga ah kula joogo inaad ogaato waxtarkiisa ogaato caafimaadkiisa ogaato kaasa mudan marka ninka askariga waa nin runtii aad u dulqaad badan aad u sabir badan aad u naxariis badan aaminaadda ilaahayna ay qalbigiisa ku weyntahay weeyaan mudanna dhiirigelin iyo wixii bulshada uu markaa ugu bareeray in garab lagu siiyo mudan caruurtiisa in la ogaado oo la dareensiiyo inay u dhalay aabba haliyee qadar baa waxa kan ahay wuxuu ugu bareeray wuxuu ugu talagalay toona ma ahayn nin macsi iyo sino ku soo qaaday maaha xaaskiisii baa u keentay gabadha guursaday gabadhu ka filayay ma ahayn gabar caruur hore soo dhashay markaa burco ka timi garoobo timi wanaagsan oo hooyo u muuqatay iyada ruuxeedu ma garanaysaa qadar ay ku timi oo hore u soo guursatay doon mid hore guursaday uu qali wala hadashay walaal waxaan ogahay waxaan kuugu bareeray toona ma hay cafi bay ku tir mariyo lababa markii ugu dambeysay wuxuu yiri inay aad u taag daranto waxaan u san tahay been ogaasaha wax kale inta ka dambeeyay marka waxa weey ninkaas oo kaleeto garab buu mudan yahay in iyo gaashan loo noqdo dhiiranaan iyo ma garanaysaa dadnimo sameeyo dadkii buu uga digay oo wuxuu leeyahay war heedhe kuma naan qarsada jiro haday doonaan dadkii ku dhex jiro oo ma garanaysaa in dadkii laga waaniyo wax kan wax caadi yihiin oo xaalad ilaahay keena ay tahay ma garanaysaa waa wax fiican saasuu leeyahay marka ilaahay idinku duwo dani iyo dawladdiisa waa mid one man one vote baan sameynaa ficilkan waxba tarayn inta dhinac iska dhigtaan ninkana one man one vote ka muhiimsan ninka waxa la tahay ka waxtarkiisa dadka waxtarkiisa uu muuqanay
askariga waxtarkiisa ayaa macna keena ilaa muu reer galbeedka iyo wadamada westernka mid u dhashay oo ahaa taala loo dhisi lahaa hase ahaatee waxaan rajaynayaa inta dareenka iyo damiir kale baynu ku badane in loo damqado ninkaas wuxuu mudan yahay la siiyo dowlad ma oga waxa weeye qofku ilaahay wax ka siiyo unba halkaa ku og ma garanaysaa iyo qof kale tuu ku xisaabtamayaana ma jiro qofkii si gaar inuu ula xiriiro raba ama uu wax u taro walaal Soomaaliyeed ahaaya ma garanaysaa dee mid ehelnimo iyo ma garanaysaa islaamnimo wax ku taraya haya igala soo xiriira barteeda Snapchat-ka Facebook-ga waxa weeye barnaamij kale tan inta dib ugu kulmayno waxa la iga calow warsani warqay assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala